Okay, walaalayaal kusoo dhawaada casharkan waxaan kaga hadlaynaa waxa loo yaqaano measures of position. Samadan marka waxaan kaga hadlaynaa habkii aad u soo saari karto datadaada, yani generally positionka kaga jirto datada si guud. Marka data haddaad haysatid, samadan marka qaarkood waxaad u baahantahay datadaas positionkeeda in the whole datada dhan iyo sheegtay value muayana, a certain value aad rabto inaad ogaato positionkeeda ay kaga jirto ay sheegtay datada si guud. Markaas oo kale waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano measures of position oo ah standard score ama z score sida la dhaho, percentile iyo decitiles iyo quartiles, waxyaalahaas isticmaalaysaa. Marka waxaan ku bilaabaynaa waxa loo yaqaano the z score ama the standard score. markaas aad ogtihiin marmarka qaarkood waxaad u baahantahay inaad isticmaasho inaad isbarbar dhigto laba daato oo kala duwan. Samadan garan marka waxaad isticmaalaysaa z score. marka z score waxaa lagu helaa waa value laga jaray mean loo qaybiyo standard deviation. Samadan garan waa the value is obtained by subtracting the standard score for a value is obtained by subtracting from the mean by subtracting the mean from the value and dividing the result by the standard deviation. Marka sample mean haddaad datadaadu ay sample tahay, sample hadday tahay marka waxaad samaynaysaa x waxaad ka jaraysaa meanka sampleka oo ah x ba, kadibna waxaad u qaybinaysaa sigma, waxaad u qaybinaysaa waxaan ku wada standard deviation oo ah s. Standard deviationka sampleka waa s. haddii laakiin datadaadu population ay tahay waxaad samaynaysaa value aad soo qaadaysaa oo x waxaad ka jaraysaa meankii populationka oo loo yaqaano mu, kadibna waxaad u qaybinaysaa sigma oo ah standard deviationkii population. marka the z score waxaa lagu represent the number of standard deviations that a data value falls above or below the mean. Okay, marka example ayaan qaadanaynaa. One example kan test score samaydan garan. marka a student lagu dhahay a student scored 65 on arday baa wuxuu score garay 65 dhibcood on a calculus test that had a mean of 50. calculus test oo meankiisu ahaa 50, standard deviationkiisana 10 ahaa, ayaa ardaydu waxay keentay 65 max ay keentay. on a history testna waxay keentay 30 max ama 30 dhibcood ay keentay on a history test. meankiisu yahay meanka testiga waxa weeyaan waa 25, standard deviation wuxuu leeyahay oo 5 ah, waa history. marka compare waxaad isbarbar dhigtaa relative positions on the two tests, labada test positionkeeda isbarbar dhig. Of course haddii aad iska fiiriso indhahaaga waxaad dhihi kartaa gabadhan waxay ku fiican tahay calculus because calculus ayaa max dhibco badan ay keentay. laakiin always the case saas ma aha. waxaad u baahan tahay inaad aad fiirisid, aad tixgelisid meanka iyo standard deviationka sifa aad ogaatid positionka gabadhan labadan imtixaan ay samaysay xaggay kaga jirtaa. marka saan samaynayna waxaan isticmaalaynaa z scoregaas. marka is equal to baad leedahay inta is equal to marka waxaan isticmaalaynaa x oo datada haddaan ku bilowno z score calculus marka 65 ayaan soo qaadanaynaa oo intay dhibcood ay keentay. inta bracket gasho 65 waxaad leedahay 65 minus meanka calculus waa 50, marka ka jar 50, kadibna waxaad u qaybisaa standard deviationkii oo ah 10. marka z scoredeeda calculus waa 1.5. haddii aad u imaato history marka waxa weeyaan waa 30 keentay, waxaad ka jartaa meanka oo ah 25, kadibna waxaad u qaybisaa 5 oo ah standard deviationka historyga testigaas wax ku soo baxay 1. marka labada scores haddaad isbarbar dhigto waxaad arkaysaa gabadha z scoregeeda calculus inuu sarreeyo then history. marka ardayda ay isla sameeyeen imtixaanka markaad fiiriso
waxaad fiirinaysaa positionka kaga jirto calculus testiga ayaa ka sareeya positionka kaga jirto history testiga Soomaaliga marka almuhim z-squared calculus maadaama uu kaga horeeyo waxaad dhihi kartaa layla gabadha waxay ku fiican tahay calculus markii loo barbar dhigo history laakiin u fiirso annaga toos kaliya maanan dhaanin gabadhu maadaama 65 dhibcood ay keentay calculus history ay keentay 30 dhibcood calculus ay ku fiican tahay no waxaan consider garaynaynaa waxyaalahan kale okay example kale hadaad fiirisid example kan kale oo ah waxaad haysataa labadan test find the z-scores for this test lagu dhahay test A waxaa la keenay 38 meanku waa 40 standard deviation kana waa 5 test B na waa 94 meankuna waa 100 standard deviation kana waa 100 marka labada test kee sareeya waxa weeyaan waxaad isticmaalaysaa the z-score so martin the z-score marka midi waxa weeyaan okay test A with A isaga soo gaabi marka z-scoregeedu waxa weeyaan meeqan la siiyay waa 38 minus meankii oo 40 loo qaybiyay standard deviationkii oo 5 marka minus 40 loo qaybiyay 5 test B ka warrama test B waxa weeyaan dad fiiriso waa 94 x2 kadib waxaad ka jaraysaa meankii oo 100 loo qaybiyay 10 marka waa 94 minus 100 loo qaybiyay 10 soma yes loo qaybiyay 10 okay marka labadooda dad fiirsid A iyo B labadooda waa negative laakiin labadooda yaa sareeya of course A baa sareysa because A baa negative-keedu yar yahay marka waxaad dhihi kartaa test A ayaa has a relatively higher score than test B so maadan garan marka the score for test A ayaa ka badan relatively markii loo barbar dhigo test B ogow toos iskama ma dhihi kartid fiir hadda fiiri labadooda test B waxa weeyaan waxaa la keenay 94 test A na waxaa la keenay 38 ayadoo saas ay tahay baa test A ay ka weyn tahay ama scoregeedu uu ka badan yahay test B sababtoo ah waxa weeyaan waxaan isticmaalnay the z-score marka kaliya indhaha dad ka fiiriso enough ma as long as labada test ay kala duwan yihiin oo meankoodu kala duwan yahay standard deviationkooduna kala duwan yahay scoregoodu wax intuu rabaa kala badnaado it does not matter waa inaad formulatan isticmaashaa si aad u establish garaysid kee labadooda sareeya somadan garan marka labadan test A baa score ahaan ka badan test B casharka soo socda waxaan bilaabaynaa insha Allah percentiles kaasna daawada wixii comment su'aala waxaad soo qori kartiin Facebook page-keena ama directly WhatsApp ayaad igu soo qori kartaa numberkan waxaadna ka soo qayb gali kartaa hadda ardayda u baahan special classes in statistics way la soo xiriiri karaan through WhatsApp numberkan sifa aan u caawiyo marka waadna ka kulmayno cashir soo socda insha Allah mahadsanidin